السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena cashirkan waa qaybtii shanaad ee HTML-ka. qaybtan waxaan kaga hadli doonaa listiska. waxaan qaybinaynaa laba qaybood oo kala ah order list iyo unordered list. markaynu marayno HTML-ka labadaas ayaa loo kala qaybiyaa. marka order listku wuxuu noqonayaa mid kasta oo leh muxuu ahaay order oo 1 2 3 number leh, midna aan lahayn numbero oo ah bullet ama zero ama circle waxyaalahaas oo kale. halkan hadda waxaan ku qoray in yaro qoraal waxaan idhaahdaa kheyraadka dhulka Soomaalida laga helo. sidaan wada ogsoonahay dhulka Soomaalidu degto waa dhul dihin oo aan wali la isticmaalin kheyraadkiisa. noocyada kheyraadka dhulka Soomaalida laga helo, marka halkan aan rabaa inaan sameyno list ka hooseeya. marka listigaas aynu ugu sameyno waxaan isticmaalaynaa unordered list. marka waan isticmaalaynaa unordered list, udaas unordered bay tahay, list elton waxay tahay list bay tahay. marka kadib ani emit ayaan isticmaalaya si automatically soo xiraya. marka kadibna list item baan dhahaynaa. list itemkaas wuxuu noo sheegayaa marka itemyada aynu gelinayna. marka halkan kheyraadka waxaan dhahaynaa noocyada kheyraadka dhulka Soomaalida laga helo. kow waxaan leenahay shidaalka, laba waxaan leenahay kalluunka, saddex waxaan leenahay marka waxaad doontaad ku qori kartaa. yani ani hadda tusaale ahaan baan soo qaatay. waxaan kaloo dhigi karaa macdanta, dhirta, waxaan kaloo dhigi karnaa dahabka. marka list itemka wuxuu taagan yahay itemyada aad listiga ku sameynayso, halka uu unordered listigu taagan yahay yani kuwii aan order garaysnayn weeyaan. hadhow baad kala fahmi doontaa. yani Soomaaliga in yar uu ku yar adag yahay maadaama luqadeenu ay xagga maad aragtay waxa weeyaan itemyada aanan list garaysnayn, aana yani lahayn numbero isku xixiga weeyaan. marka halkan waxaan dhigi karaa dahabka baan dhigi karaa dahabka. markaan save dhaho live server baan isticmaalayaa. browserkayga tago halkan toos waxaa soo gelaya noocyada kheyraadka dhulka Soomaalida dhulka Soomaalida laga helo. marka halkan waxaa ku qoran shidaalka, kalluunka, macdanta, dhirta. halkan maxay nooga muuqda yani bullet, waxay nooga muuqda circle wada madow ah kaas oo ahayn numbero. wuxuu markaa noqonayaa waxaan ama list itemkan aynu gelinay inuu yahay unordered list, ku aan order aan lahayn. marka kadib midda kale halkan u yar fiirsada. imika haddaad halkan u yar fiirsato waxaad aragtaan labadan waa isku mid qoraalka. marka HTML ka fiirsa ama code markaa fiirsanayso aad qorayso yani waa markasta waa challenge weyn. sababta isku ekaadeen imika ma garanayo inaad qiyaasi kartaan, laakiin hal cilad ayaa jirta. halkan elementiga aan qeexay oo ah heading ma xidhna. maadaama una xidhnayn wuxuu markaa u gelinayaa dhammaan wixii ka dambeeyo dhan sida kan oo kale ayuu la macaamilayaa. wax madow buu ka dhigayaa, isku level buu ka dhigayaa, isku text size buu ka dhigayaa. hay tusaale aan xidho bal halkan waxaa ka maqan forward slash baa ka maqan. aye bodibiska baa ii soo xidhayba sorry bodigan maxay ka soo daaray h4 way xidhan tahay. lan save lo halkan maxaad ku aragtaan marka uu isbedelaada qoraalkii kala duwan yihiin yar buu noqday. marka kan waxaan sameynaa baynu waa unordered list weeyaan. tusaale bal aynu sameyno kan aynu soo koobiyeysano koobiyaanahayna kadib hoos ayaynu sii degaynaa. waxaan leenahay break baan leenahay si ay noogu yar kala durkaan. kadib markaan break leenahay paste aan qulaynaa. marka unordered list baan soo sameynay. hadda waxaan sameynaynaa order list. order listigu wuxuu noqonayaa iyadoo order garaysan ama isku xigta oo numbers baan ka dhigi karnaa, abcd baan ka dhigi karnaa oo abcd baan ka dhigi karnaa. bal numbers aan ka dhigno waxaan dhahaynaa order. halkan waad aragtaan wiisuso markaan halkan uu geliyay kana uu iisi bedelay. waxaa sameynaya waa extensionkan isticmaalayo maadaama Visual Studio Code isticmaalayo. waxaan emit ayaa wuxuu sameynaya markaan kan geliyo inuu automatically ka kala socdo. keyboardka ayaan markaas isticmaalaysaa nagu save garayo. marka order listiguna sidan ayuu isla noqonaya. halkan maxay nooga muuqda noocyada kheyraadka dhulka Soomaalida laga helo shidaalka, kalluunka, macdanta, dhirta, dahabka. noocyada kheyraadka waa isku midkiin, wuxuu waa isku midkiin, laakiin kan muxuu sameeyay order buu sameeyay. marka 1 2 3 4 ayuu sameeyay waa order weyn. marka order list iyo unordered list qaabkaas ayuu shaqeeyaa. insha Allah taala waxaan rabaa inaan mid kale ka sameeyo inta ku deenayo hal cashir ugu xigo order listiga iyadoo la isdhexgelinayo sameyn doona. marka haddii aydan fahmin fadlan comments ka noogu reeba.
insha Allah taala wixii aad leedihiin saxana iyadana sidoo kale commentiga nagu reeba markasta waxa aad dhahdaan saxa waa dhiirigelintina anagana inaan markasta wixii naga khaldan saxno aad iyo aad ayay noogu fiican tahay mahadsanidin